bariga gobolka Doole ee dowlad deegaanka Soomaalida roobabkii dayrtu aan ka diin iyo gugii oo ku yara ayaa sababay jiilaal kulul barkadihii qalaleen biyo booyadiceel ka keento oo qaali ah suuq la'aan dhanka xoolaha oo neefkii saylad la keeno cid dhuganayn cudur xoolaha ku dhacay mid dadku ay ka cabanayaan iyo dhibaatooyin badan oo aan hada lagu soo koobi karin socdaal dhowr maalin oo aan ku tagnay deegaano ka tirsan Galaadi si aan u soo tabino dhibaatada ay qabaan dadku intii deegaan ee aan marnay baahida dadku waa isku mid waxaana ugu darnaa biyaha iyo cuntada oo in badan aysan awoodin dhaqaale ay ku iibsadaan maadaama xoolihii nolosha dadkan ku tiirsaneed aysan iib lahayn dawladda iyo jaaliyada dibadda ee Doole ka soo jeeda ayay ugu baaqeen inaysan sidaas ku fiirsan isla markaana intii awoodooda ay ka caawiyaan biyaha cuntada iyo daawada si aysan ugu dhicin mid lamida dhibaatadii abaartiisima ee sanado ka hor maratay nolosha dad iyo dunyo badan oo deegaanadan ah waxa ka jira wadankan hadda waqti abaareed baa ka jira xaaladu ilaahay baale way culus tahay haddana markii hore xoogaa qorshaha wadanka loogu qorshaafkii waa dhamaaday waxa kale yiraahdo wixii la heli karay oo booyad biyo lagu dalman karay waa dhamaadeen xoolihii waa daaleen baqti bay aad u bilaabeen meelaha hadda qaarkood waxa soo tus karnaa ilaa 40 neef oo isku meel taala ama 30 oo baqti ah xaafadaha qaarkood oo hadda aan ognahay hadii hadda waan soo tus karnaa waxyaabo cudurna waa u weheliyaado iyaga xoolihii abaaraysan oo gaajaysan oo daalan haddana cudur baa ugu darmaday dadka marka islaamka iyo ibn aadanka dhamaantii waxaan weydiisanaynaa gurmad degdeg in la soo gaaro dadkan magaalo hadda ay si waraaqaan oo baqaarkeeda wax ka sidaytaan male waa meel cidla ah oo shaagag isku gooyaan shacabka qurbad joogta oo yaani islaamka waxaan ka codsanaynaa in ay la soo gaaraan gurmad degdeg waxaan wax ku sii wadi karno waxaan ma aha anaku dawladda abaar kastoo nagu timaad madax kastoo timaad waxay la yiraahaa baahida iyo abaaraha iyo hay'adaha wax oo dhan hal loo dadaalo dadka shacabka meel ay nooga maqan tahay mooyaan wali maana arag war wax sheegta war maxaa daran war maxaa muuqda war maxaad ku nooshiin war biyaha cabtaan seetiin war abaartu seedin ku tahay midna maana arag waxaan ka codsanaynaa dawladda dhexe iyo kililka madaxdiisa iyo jaariyadaha iyo indheer garadka inayna ogaadaan ma qabno biyo ma qabno waa qalalan yihiin barkaduhu ceelkaan aadna ama waa meeshaad taqaaniin oo Galaadi la yiraahdo ama waa Doolo waxa biyo noogu sokeeya naftii aadaa ma gaari karo awr biyo kama keeni karo geeluma arooro wixii aan risqo alla nasiiyaa waa booyad dhaladeed wax saaran oo ilaahay indigiisa laga keenay meel riiga dadka yagaas ilaaha qadartiisa ayaanu ku noolahay laakiin xagga biyaha iyo xagga anfacada labadaba dhib ka taagan waxaanu codsanaynaa dawladda rabbina aan ka baryaynaa dawladda iyo dadka jaaladaha walaalaha iyo dabadda jira inay noo soo gurmadaan baan codsanaynaa codsadeegu saas weey sanadkii hore maanaan lahayn abaar baa dadku ahaa abaarihii dhici jiray wax u eg baa hadda dadku joogaa xooluhu way dhimanayaan hadda xooluhu dhimashay bilaabeen marka waxaanu leenahay hanala soo gaaraanu leenahay inta way codsigayo waxa weeyaan in hadda biyaha iyo baadku labaduba aad iyo aad bay noogu adag yihiin wax dawladda inaba ha u leekaatay oo noo xil saaran lama arko hantida iyadii haatan wixii hadaan haysanana waa wax iska daandaan oo aan basar lahayn waxaan codsanaynaa oo dawladda ka codsanaynaa oo jaariyadaha dibadda ka codsanaynaa oo muslimiinta ka codsanaynaa gacan qabasho degdeg sida ugu sharaf badan baan ka codsanaynaa waxaan rabnaa biyaha in la ka caawiyo baadka in la ka caawiyo ilaahay baa caawin leh shukaadan guray telefishinka Universal gobolka Doolo